muddada hadda koobneed 6 bilood waxaan ahay gudoomiyaha Efsan. Dat was een bewogen 6 maanden. Oo wax badan heel veel uitdagingen ku jirtay. Oona maxaa la lahaa shaqo badan noola igmaday. Aan isleeyahay inaan 6 bilood nagu yareed. Laakiin inaan arkay inay uitdaging badan jirto binnen Efsan. Achtergrondkayga waxaa waaye Groningen waan deganahay muddo 30 sano ka badan. Ik ben arbeidsdeskundige. Gemeente waxaan u shaqeeyaa Westerkwartier. Waxaan ka ahay arbeidsdeskundige. Maxaan sameeyaa dadka oo shaqaalahan toetsgareeya. Ik ben senior adviseur. Muddo hadda 17 sano aan ka shaqeynayaa. Dat betekent dat ik weinig ambitie heb. Dus dat betekent dat ik niet veel wisselijk hou. Wat goed is moet je houden. Maar als ik terugkom bij Efsan, wat ik zie, waxay igu beweegreden inaan Efsan u shaqeeyo waxaa waaye anigoo yaraan u shaqeyn jiray Stichting Somalisch Groningen aan voorzitter ka ahay. Kabacdina maxaa la lahaa waxaan jecleystay in aan overkoepelde organisatie Somaliland u shaqeeyo. Markasta aan arko inay Soomaali ama een politica naga hadlaayo ama maxaa la lahaa TV nagala hadlaayo altijd negatief beeld. Ik schaam me voor om op dat moment Somali te zijn. Maar ik ben super trots om Somali ook te zijn. Dus mijn beweegreden waxaa waaye inaan ka shaqeyno Soomaalida inta wax ku baratay ama ku dhalatay oo u jeedna maanta Xaawo Ismaaciil oo wax ku barteen af Soomaaligoodana fiican yahay inaan dadka tusno inay dhalinyaradaas nagu dhex jirto positief beeld inaan tusno Holland ayna jiraan dadkeena intaan nahay kooban 40,000 aan shaqo badan qabano meelo fiican ka wada shaqeyno dhaqtariin nagu jiraan media ku jiraan dad shaqooyin badan qabta laakiin markasta Hollandeeska naga hadlaa inaan nahay dad waxba noola arkin mijn maxaa lahaa ideale ambitie markaan Efsan dhahayno waxay noqon doontaa meel inaan ka shaqo badan inaan qabano Soomaali kor u qaadno dad isku duuban aan meel annaka aan leenahay oo Soomaalidii iskugu tagtana aan u sameyno projectyaasha aan badino minimaal komende jaren in een 4-5 projectyaal cusub lagu soo daro Efsan si Efsan draagende kracht gemeenschapka ay noqoto. Aniga ma qabo stichting gooni ah onafhankelijk ka ahay waxaan meesha u soo istaago waa inaan dadkayga Soomaalida fiisbiila ugu shaqeeyo ilmaheygana ajirna ilaa iga siiyo idinkana maxaa la aasaas idin markas idin garab istaago. Ik zou dat heel graag nog 3 jaar willen doen en dat ga ik ook zeker met alle doen. Ana magacayga waa Xaawo Axmed waxaan deganahay Hoofddorp qofkaan aan sheega marka aniga hadda arday baan ahay haabiyo waan digtaa sanadka ugu dambeeya ku jira waxbarashada hadda waan dhameey rabaa waxaan bartaa environmental science marka afrindes milieukunde waxay ku saabsan tahay duursaamheid iyo water management iyo waxyaabahaas oo dhan hooyaday Efsan student person ka tahay iyo urur leedahay ururkaasna secretary aan ka ahay marka urur iyo soo lagu shaqeeyay waxaasna erfaarna u leeyahay sidoo kale hooyaday waan caawin jiray dadkeeda tahay inaan turjubaan ku caawiyo mise waxyaabahaas oo dhan ani xataa student person ahay 2022 student person noqday marka hadda 4 sano student person ahay anoo 18 sano ah student person noqday sanad horena waxaan noqday trainer markaas trainer markaan noqday GGD Amsterdam hadda vrijwilligers contract ay soo direen waan trainer VGV kula shaqeeyo sidoo kale marka hadda waan ku faraxsan intaan iso istaago inaan shacabka Soomaaliyeed caawiyo aan waxaan awood u leeyahay inaan ku caawiyo haday cilmi noqoto haday tahay maadaama inta ku soo koray inaan dhalinyarada u hadlo mise naagaha u hadlo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaraduna mar walba isbedel ay u baahan yihiin adinku waxa waaye waalid aan u tihiin marka waxa waaye xoogaa nasiinadu muhiim ay idin tahay marka xoogaa jiilka cusub in jaanis la soo siiyo waxa waaye jaanis la siiyo muhiim waaye marka retail ondernemer handala bartay wiilna waxbarasha ku jira Soomaalida community Soomaalida hore ugu dhex jira ilaa haddana waa ku dhex jira wadankana mar walba waa tagaa marka muhiimad weyn ay leedahay inaa wadankii wax ugu qabto wadankii wax ugu celiyo marka jaaliyadana waxa waaye jaanis muhiim ah waxa waaye inay kala han doontaa ay la tahay marka sharaf ay tahay inay idin shaqeeyo waxa waaye waa mahadsantihiin insha Allah sheegina horta
wax qabadka ilaa haddaan soo qabanin waxa inta meesha aadi doon waxaa iga fiican 6 bilood sidaan iskula soo shaqeyn aniga guddigeygii waxaan u maleynayaa ilaa hadda guddi kale aan ku bedelan karo inaysan jirin wax qabadkeeni iyo midnimadeeni wax meesha aan joogno waa midnimo haddii midnimo jiro waxaan u maleynayaa howl lama wada qaban karo marka waxa kaliya hadda rabo inaan kusoo kordhiyo waxa waa inaan efsan 3 sano soo socoto waxyaalo oo barjakyo cusub inaan sameyno siiba dhalinyarada waxa noogu muhiimsan waxaa dhalinyarada hadda ninkaas ahaa somden footballka oo kale efsan ilaa hadda football wax ma qabato waxaa jeclaan lahaa waxyaalahaas oo kale inaan ka wada shaqeyno maxaa lahaa ururada hadda oo nagu soo kordhaan inaan soo dhaweyno iyo midda ugu muhiimsan waxa waaye mar walba waxaa laga hadlaa guddiga iyo waxqabadkooda laakiin shaqaalihii inaan maanta iyagana ka xusno habar sahro mahad iyo maxay dhahaan afgooye marka waxyaalo badan waxaa jirta oo efsan ay qabata marka hadda kadibna insha Allah waxaan isku dayaynaa inaan sida oo hadda ku soconay si ka fiican si sameeyno mana ku sii dheeraanay waxaan maleynaa waqtigu nagu dheeraaday waana mahadsantihiin doorashadu mar walba waxaan isku daynay inaan si cadaalad ah u sameeyno oo ka hortagno wax kasta oo caqalad ku noqon karo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa kasoo qaybgalayaasha ururada dhammaan ee dalada ka midka ah si fiican ayaa noogu dhacday doorashada nidaam ayaa la sameeyey anagoo 3 qof ah oo ka mid ah guddiga doorashada waxaan la shaqeynay si kumeel gaar ah guddiga hore ayaa waxaan kula shaqeynay inaan ka caawino farsamada doorasho iyadoo cadaalad la raadinayo waxaan kandidaadka doorashooyinka ama dadka isoo sharax musharaxiinta aan u diidno xogta inaan la wadaagno maadaama ay sharaxan yihiin guddiga hore alcamo doorasho si fiican bay noogu dhacday 8 qof ayaa isoo sharaxday 1 qof ayaa dib uga laabtay 2 qofna meesha mayna imaan marka waxay noqotay sharciga efsan u degsan oo ah 5 qof oo guddiga ah 5taa qof ayaa kusoo baxda doorashada iyaga ayaana hogaamin doona 3 sano ee soo socoto wixii ka dambeeya ayaan isaga imaan doonaa iyo kulan dambe oo doorashooyin Soomaal mar walbana midnimada iyo wadajirka Soomaalida ayaa muhiim u ah dalada efsan oo ay ka mid yihiin ururada Soomaaliyeed dhammaan ee halkan maanta waa maalin oo mataqaanaa nasiib badan qorshaheena iyo doorashadeena waxay u dhacday sidii la rabay oo mataqaanaa si nidaam ah dadkii iswada xushmeynaya aad ayaan ugu faraxsanahay maanta sida si wanaagsan ayay noogu dhacday mataqaanaa maanta waxaa nagu soo biiray guddi cusub guddigii hore qaarka ka mid ah ay sii waday dhalinyaro cusub aa nagu soo biirtay waxaan u rajeynayaa in mataqaanaa ay wax ka bedeli doonaan mataqaanaa habka hadda loo shaqeeyo waan isleeyahay dhalinyarada cusub ee halkan kusoo barbaartay inay wax badan ay ka bedeli doonaan maadaama ay halkan ku dhasheen ay yaqaaneen dhaqanka Yurub ayna yaqaaneen dhaqanka Soomaaliya iyagoo isku geynaya labada dhaqanba ka qaadanaya wixii fiican waxaan rajeynayaa mataqaanaa inay wax aad iyo aad u badan ay ka bedeli doonaan